su'aashan ku weydiinaya waxa weeyaan sidee aragtaa dawlad goboleedyada lagu sameeynayo wadanka gudihiisa iyo dibadiisana maxay kula tahay in faa'iidada ka imaan karto dawlad goboleedyadaas بسم الله الحمد لله magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Cabduqaadir Axmed Shabe su'aal fiican waaye shacbiga Soomaaliyeed dib badan ayaa ku dhacay kala burbur weyn waxa ka faa'iideystay kala burburkaas cadawga Soomaalida oo koow ay ka tahay xabashida waxaynu ku dadaalayaan wax la yiraahdo divide and rule Soomaalida dal rabin wax loo qabto dawladaha muslimka Afrikaanka sida Masaarida iyo Morocco iyo Algeria iyo حتى maxaan ku rahaa Suudaan iyo حتى Nigeria waxa soo yaalkeen lahaad dal rabin wax loo qabto laakiin waxa la soo kiristay Uganda oo Kristaana Burundi oo Kristaana Ethiopia oo Kristaana waxaas u adeegaysaa kala qaybinta Soomaaliya hasa ahaatee Soomaalidu inay hurdada ka kacaan oo hadii ay wax sameeyaan xataa isku keenaan wixii hadda mareega la sameeyay maartay waxa saaxiibkii Tayyib ayaa madax looga dhigay waxaan rajaynayaa inuu raadiyo munduloodka intiisa kale marka hore ka bacdina uu raadiyo dadka kale oo jaarka la ah sida Iiraan oo kale sida maartay gobolada kale kulli inuu raadsho oo hal mar maartay la sameeyay yani Soomaaliya say u soo noqoto yani from grass hoosta laga soo bilaabo kor marka la arko okay way hadda fiiri wasiirada fiiri waxa magacaabay Mareykan ayaa qof ku rabo magacaabay kana wasiir mid tukanayo horta laba ogolba hadda ka bacdina wasiir noqdo mid tukanayo taasana ku hubo marka waxaan rajaynaynaa gaalada mu'aamarada wataan ilaahay wuxuu leeyahay yamkuruna yamkuru la waxaan rajaynaynaa si gaaladu wataan ma wax kale inay soo dadka shacabka muslima waay shacabka diinta islaamka jecel qofka ugu xun Soomaalida waa qofka canugiisa geeyo dugsiga quraanka geeyo inkastoo naftiisa uu xogaa dhuusan yahay canugiisa hadana inuu dhawo mar rabo marka Soomaalida waa shacab wanaagsan waxa ka garanaysaa dib meel Soomaali kula kulanto yaa taag ma ku dhahayo wax kasta ku qabanaya marka يعني waxaan ayaga gaalada muraad ka leeyihiin laakiin waxaan rajaynayaa inay khayr noqoto aakhirka inay khayr noqoto